maxaa sababay in fanaan Sharma Boy oo ka naxo dagaalka labada qof ee ugu saameynta badan dhanka TikTok-ga oo saameynta faraha badan ku leh waqtiyadan dambe ama sanadahan dambe in uu ka naxo ama shakhsi ahaantiisa oo aad iyo aad dhanka Instagram-ka oo dagaalkooda ama uu ka xumaaday labadaas qofood shakhsi in ay isdagaalaan iyo sababta uu uga xumaaday arrintaas ku kalifi karto isaga sida la wada og yahay sababta kaliftay in ay isdagaalaan labadan gabdhood oo dhanka TikTok-ka saameyn fara badan ku leh sababtaasna waa in ay isku qabsadeen hadiyadaas oo la qiiminayo ama hadiyadaas oo loo bixinayo xidigta sanadka ama xidigta TikTok-ka sanadka ka dagaalkooda sababtaas ayaa kaliftay laakiin su'aasha meesha taal ay waxay tahay in oo fanaanka Sharma Boy oo ka xumaado ama isi shakhsiyan oo ka xumaado laakiin aan ka xumaanin fanaanin fara badan ama fanaanin aad u shacbiyad badan in ay labadan gabdhood ama dhanka TikTok-ka ay isku aflagaadeen ama dhanka TikTok-ka ay muuqaalo iska soo duubaan marka laakiin maxaa kalifay in fanaan Sharma Boy oo ka xumaado su'aasha meesha taagan waa intaas maxaa kalifay ama isaga ahaantiisa oo dhanka Instagram-kiisa uu soo qoray in uu ka xun yahay oo jecel yahay in mar waliba ay si qalbi nadiif ah ama qalbi wanaaga ay si wanaaga ay ku bedeshaan dagaalkii ama xifaaltankii ee u dhaxeeya labadaas qofood sida la wada og yahay muuqaalada marka oo soo saaro ama dhanka heesaha oo ama dhanka fanka sida u taqaanaba markuu soo saaro fanaan Sharma Boy waa labada qofood oo dadka ugu horeeya ama dadka mar walba muuqaal walba ama hees walba oo fanaan Sharma Boy oo soo saaro ama dhanka YouTube-kiisa oo ku soo baahiyay yihiin labada gabdhood oo sida degdega muuqaalada ama challenge si degdega u soo sameeyo oo muuqaal ahaan iskaga soo duubo oo iyagana ay ku soo baahiyaan dhankaas iyo TikTok-ga markaas ayaa dad aad u fara badan ama bulsho aad u fara badan oo dhanka TikTok-ga ayagana ayaa markaas waxay ka soo sameeyaan iyagana muuqaalo aad u fara badan marka sababaas ayaa iska jiro si hadii la fiirsho ama si in ay yihiin laba qofood oo saameyn leh oo dhanka TikTok-ga marka sababaas ayaa la dhihi karaa sababta kaliftay in uu fanaan Sharma Boy oo ka xumaado in uu laba qofood oo muuqaaladooda mar walba oo ku tixnaa ama mar walba si ahaan mar walba hees oo soo saaro in ay challenge-yada iyaga iskaga duubaan oo ama fiirsado ama dhanka Instagram-kiisa oo ku soo baahiyo marka sababaas ayaa la dhihi karaa in uu aad u agdhawaa ama uu jeclaa ama qaabka ay challenge-yada u sameynayaan ama qaabka ay muuqaalada u sameynayaan ama muuqaalada ay saaxiibadooda ama dadka dhanka TikTok-ka ku xiran soo gudbiyaan markaas sababaas ayaa la dhihi karaa ama uu muujinayo in ay mar walba ay noqdaan ama hal meel ay ka soo wada jeestaan marka sabab fara badan ayaa dadyo aad u fara badan ayaa arrintaas aad u buuninaya ama qof walba fikrad ahaantooda ay la wadaagayeen ama qof walba comment ahaan ay qoraal ahaan u soo qorayeen fikradooda muhiim ah ma ahan in ay isxaagtaan ama dagaalkooda oo dhanka social media ay ku soo baahiyaan muhiimadu waxa waaye ama mar walba qurux badan in ay mar walba ay hal meel ka soo wada jeestaan ay noqdaan dad meel ka soo wada jeesta mar walba saas ayaa qurux badan ama mar walba sidaas ay farxadda ku habboon tahay in badan